qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركز كسو دوالا مقالة يتحنها أها يعني هل كان كسو باين جرني كسو بسنة مادة إنجليس قارهان جريد كسديدات ولي waxaa ku jirnaa unitki afraad ee taarati muuqaalkan marka wuxuu ku saabsan yahay forming questions samaynta su'aalo oo ku qoran page-ka 53 ee buugga dabcan soo baxso la soco title-ka su'aalaha wuxuu yahay marka form questions su'aalo ka dhig ama su'aalo ka samee from the following statements soo socda statement-ka koowaad marka hadii aan aragno the first one statement-ka koowaad has been done for you waa lagu sameeyay statement-ka koowaad marka maadaama lagu sameeyay waa kasoo tagay kuwa laga rabo bis ama kuwa ay tahay inaad ka jawaabtiin ayaa soo qortay marka statement-ka koowaad maxaa waaye they were served rice and stew for lunch they were served waxay soo adeegeen iyaga rice bariis and stew iyo wixii lagu cuni lahaa stew waxaa la dhahaa iidaan ama goosaar ama daaribta suuga dheh ama daaribta maraq dheh af Soomaaliga rabta saaro waa wax lagu cuno ama rice lagu cuno ama spaghetti lagu cuno ama something else lagu cuno marka they were served waxay soo adeegeen iyaga rice bariis and stew iyo suugo ama maraq ama iidaan for lunch qada ahaan statement-ga marka maxaan ka dhigaynaa question su'aala ka dhigana maxay noqonaysaa what were they served maxay soo adeegeen iyaga what were they served maxay soo adeegeen iyaga statement-ga labaad ee ku xigo asagana wuxuu yahay Warsame was told a story Warsame was told a story Warsame wuxuu sheegay story qiso ama sheeko statement-ga marka hadii aad ka dhigno question maxay noqonaysaa what was Warsame told Warsame wuxuu sheegay what was Warsame told Warsame wuxuu sheegay statement-ga saddexaad ee ku xigo wuxuu yahay the shopkeeper dukaanlaha was given waxaa la siiyay some money xoogaa lacag ah the shopkeeper dukaanlaha was given waxaa la siiyay some money xoogaa lacag ah statement-gan marka waxaa rabnaa inaan ka dhigno question ama su'aal maxay noqonaysaa marka what was the shopkeeper maxaa dukaanlaha given la siiyay what was the shopkeeper maxaa dukaanlaha given la siiyay statement-ga afraad ee ku xigo asagana wuxuu yahay some potatoes were cooked for us some potatoes xoogaa maxaa dhahaye barada ah were cooked for us ayaa naloo kariyay some potatoes xoogaa barada ah were cooked for us ayaa naloo kariyay haddii aan ka dhigno question muxuu noqonaa what were cooked for us what were cooked for us maxaa naloo kariyay ayay noqonaysaa what were cooked for us maxaa naloo kariyay annaga okay statement-ga ku xiga ee shanaad asagana wuxuu yahay we were brought waxaan keennay some tasty foods xoogaa cunto macaan ah we were brought annaga waxaan keennay some tasty foods xoogaa cunto macaan haddii aan ka dhigno question maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa what were we brought maxaan keennay what were we brought maxaan keennay statement-ga lixaad ee ku xigo wuxuu yahay the head teacher was told that our class teacher was sick. The head teacher maamulaha ama
maxaa dhahay head teacherka was told wuxuu sheegay that our class teacher in macalinka fasalkeena was sick uu jirnaa amaba uu xanuunsanaa. Statementigan marka haddii aan ka dhigno question maxay noqonaysaa? What was the head teacher muxuu maamulaha told sheegay? What was the head teacher muxuu maamulaha told sheegay? Statementiga toddobaad ee ku xigo wuxuu yahay asagana a beautiful dress dhar qurux badan was made for me ayaa la ii soo sameeyey. A beautiful dress dhar qurux badan was made for me ayaa la ii soo sameeyey. Statementiga marka haddii aan ka dhigno question muxuu noqonaa? wuxuu noqonaa what dress dhar noocee ah was made for me ayaa la ii soo sameeyey. What dress dhar noocee ah was made for me ayaa la ii soo sameeyey. dhar beautiful ah baa la ii soo sameeyey, dhar normal ah baa la ii soo sameeyey. What dress dhar noocee ah. Statementiga sideedaad ee ku xiga wuxuu yahay the bride was given a present. The bride caruusada ama aroosada, bride waxaa la dhahaa aroosad ama caruusad, marka the bride aroosada ama caruusada was given waxaa la siiyey a present hadiyad. Statementiga marka haddii aan ka dhigno question maxay noqonaysaa? Who was given the present? sidaasay noqonaysaa. Who was given yaa la siiyey the present hadiyadda. Who was given yaa la siiyey the present hadiyadda. Statementiga sagaalaad ee ku xigo asagana wuxuu yahay a goat was slaughtered for him. A goat was slaughtered ayaa loo gowracay amaba loo qalay for him isaga. Statementiga marka haddii aan ka dhigno question muxuu noqonaa? waxay noqonaysaa what was slaughtered maxaa loo gowracay amaba loo qalay for him isaga. isaga waxa loo gowracay loo biriyey maxay tahay? dabcan waxaa waaye neef noocee loo gowracay, goodna loo gowracay amaba wax kaleeto. marka what was slaughtered maxaa loo gowracay for him isaga. Statementiga tobanaad ee u dambeeyo asagana wuxuu yahay the cat bisada was given waxaa la siiyey meat hilibaa la siiyey. marka the cat bisada was given waxaa la siiyey meat waxaa la siiyey maxaa la dhahaa hilib. Statementiga marka haddii aad ka dhigno question maxay noqonaysaa? What was the cat given? What was the cat given? bisada maxaa la siiyey? bisada maxaa la siiyey? halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii ay tahay marka ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena waxaa kaa dalbanaa inaad nagu soo biirto aad subscribe dhahato. haddii aad hore nagu soo biirtayna inaad muuqaalka like saarta sheerna garayso si asxaab fara badan oo muuqaalku u gaaro. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.